أول نجي لبا جير أنا صاحبك يكينه شمعة أصل قحويني وحابني شاهي حافظك عبنا لبا جمعة اسكو يميت حلبان راديناي حلبان كيو واي سوجدكم بأدبنا هدي الضل صاحبنا لا أمانة للجو قد ضد كتركي قاعد نقوله ضد هدي برلمان كالفديسية اللي اسمهم كبيرين قاتل الدين هذا ملي آذان الليهين لكن كوه هذا يجي للجو ملي آذان مله ودم بيال بحصد أو يجي ضل كودك عركة هواي هورت التاس مدينا آد اللي سكول فهم آدي وفي عن تحي مركا فيرسو ظروفها الدنيا هذا كجرة سجار تكنولوجيا عصرية يسيد أفضل ذي شيء إسجارسينتا يو محلي هذا هريد حقت مركا فيرسو waxaa muhiim ah inay dhalinyaradu ogaato in fariin kasta oo la soo diraa aysan ahayn mid run ah oo amaan ah inaysan ahayn oo ay dadku fahmaan waxaan la iska fiiriyo gaar ahaan fariintu haddii ay xambaarsan tahay afkaar xag jir iyo afkaar argagixis haddii xambaarsan tahay waxay u baahan tahay in aad looga taxadiraa oo la iska hubiyaa maxaa yeelay fikirka xag jirka ah wuxuu si fudud ugu faafaa bulshada asigoo aamusan oo aan sanqar lahayn mar dambaa lagu baraarugaa wax marka la dagaalanka argagixisada anaga ciidamadan muddo dheer aan ka shaqeynayay la dagaalanka argagixisada ma aha dagaal kaliya oo uu ku filan yahay dagaal military kaliya ma waa dagaal isku sidkan oo warinaya dhacdooyin kala duwan oo warinaya dagaal nuxureed oo narrative ah oo qeexaya ama go'aaminaya mustaqbalka dhalinyarada iyo mustaqbalka bulshadeena go'aaminaya waa sidaas darteed ayaa waxaa loo baahan yahay waxay argagixisadu hubka ugu weyn ay adeegsanayaan ay ka dhigaan maran habaabinta amba waxa ay adeegsanayaan fariimaha ay soo dirayaan ay ka dhigaan annaga marka aan dhalinyaradii Soomaaliyeed nahay amba aan saraakiishii dawladda nahay amba hay'adan hadda aan nahay waxa aan u baahannahay ma aha inaan fariintaas ka jawaabno ma aha fariintaas wax ka awood badan hubka awood badan oo ka adag oo ka adkaysi badan oo ka waari og inaan adeegsanaa waana hal shay waa runta wax kasto aan sameynayno inaan runta ka sheegno waaye wax kasto aan sheegaynana inaan runta ka sheegnaa waaye marka laga hadlaayo doctorka si cilmihi u hadlay meeshan ka hadlay macallin baaraha marka laga hadlaayo sababaha ay dhalinyaradu amba ay ku ugu biiraan dadka Soomaaliyeed argagixisada way ka duwan yihiin kuwa adduunyada si ugu biiraan isku mid ma noqon karaan wax kala duwan waaye inay qof Soomaali ah shabaab ama daacishta Soomaaliya oo ku biiro iyo qofka galbeedka Afrika ku nool dalalka galbeedka Afrika ku nool inuu ku biiro Boko Haram iyo kuwa la midka inuu ku biiro wax kala duwan waaye waxaase laga midaysan yahay waxa ay ka hana qaadan argagixis waxay ka hana qaadaa meelaha ay ka jiraan dawlad nugeylka ay ka jiraan waxa markaatii koowaad ka ah annaga argagixisadu waxay nagu soo gashay xilligii dawlad la'aanta ay jirtay iyo xilligii maxaa la yiraahdaa dagaalada sokeeyay ay jireen ayayna soo gashay markaatii kalena waxa ah xilligan oo hadda ay awoodoodu ay hoos u dhacday ay dadku gaareen inay inta qabtaan maxkamadaha inta tagaan kaga markaati furaan waxa sababaya dawladnimadii dadku fahmeen dawladnimadii soo xigeysatay waxa la fahmay waxa ay sheeganayaan iyo waxay qabaan inay kala duwan yihiin la fahmay saas darteed markay waxa markasta muhiim ah in maxaa la yiraahdaa firaaqaasi laga fogaada dhanka kale inta aan laga hadlin arinta sababaha Soomaaliya marka la joogo yaa argagixisa marka la yiraahdo laba qayb argagixisa ah waxa argagixisa ah shabaab waxa kale oo argagixisa daacishta Soomaaliya argagixisada labaduba waxay u adeegaan dalal shisheeye ad wax badan oo ka hadlay odaga u dhahay waxa laga sheegtay dalal shisheeye joogaan Soomaaliya dal shisheeye qof hadii uu adeegaysaba waxa uu adeego shabaab iyo daacishta Soomaaliya tusaale February 2012 horjoogihii la dilay ee Godane ayaa sheegay in uu bay'a la galay oo ku biiray kooxda al-shabaab oo ku biiriyay al-qaacida oo ku biiriyay isla markaasna ninkii maagaas joogo asna la dilay Emar Adwaahiri oo aqbalay hadda daacishta Soomaaliya marka la fiiriyo naftigeeda October 2012 ayay go'aansadeen inay ku biiraan daacishta argagixisada caalamiga ah Baghdadi oo maagaas joogo asagana uu aqbalay
asagoo markaasi labadaas nin iska dhaadhicinaya inay Soomaaliya markaasi ay gacantooda soo gashay ay xukumi doonaan marka aad fiiriso markay godane iyo ninkii la dhahay Cabdiqaadir Muumin labadaas nin oo Carbeed heshiiska ay la galeen wuxuu waajib ugu dhigayay inay daacad u noqdaan fuliyaan afkaartooda la soo waariday afkaartooda guracan iyo joodeenkooda guracan in dadka Soomaaliyeed ku fuliyaan markii horta cidda oo dal shisheeya iyo afkaar shisheeya ku shaqeysa waa argagixisada anaga haddii dal saaxiibna la ah ama la joogo dadka Turkiga nagu dhow dade haddii baarlamaanka la fadhiisiyo la isfaham kabiina qaata dilada meel aadaan leeyihiin laakiin kuwa hadda iyaga la joogo meel aadaan ma leh waa dambiyaal baxsad ah oo iyaga dalkooda ka cararka ah waa horta taas mid ina aad la iskula fahmo aad ay u fiican tahay marka laga hadlaayo marka sababaha hadda burburka sababaha dhalinyaradu ay ugu biiraan argagixisada ay ugu biiraan marka laga hadlaayo nafta horta ku jirta argagixisada iyo jiritaankooda waxay ku xiran tahay inay helaan dad madax marin habaabiyaan oo ku shaqeeya afkaartooda fuliyo ujeedooyinkooda guracan fuliyo naftooda ku jirta kula jirta nafta kula jirta dadkaasi marka in la tashkiiliyaa qalab badan ay ku imaataa farsamooyin kala duwan ay ku imaataa dadkaas in la tashkiiliyaa waagi hore ee 2000 markii la joogay argagixisadu si qarsoodi ah oo ay isqarihayaan dadka ku tashkiili jireen mar dambe maxkamadihii yimideen ayagoo sumcaddii markaasi muuqatay ee ay sameeyeen maxkamadaha ka faa'iideysanay ayay banaanka xoogaa u soo baxeen xilliyadii dagaaladu ay dhaceen oo Muqdisho dagaaladu ka dhaceen oo maxaa la yiraahdaa muqaawamadu ay bilaabatay ayay ka faa'iideysteen oo ay sheegeen ayagoo markaasi ku gambanaya inay wadaniyiin yihiin Ethiopian ay necab yihiin amba ajnabiga ay diidan yihiin iyaga ku gambanaya markaasay si fiican soo ifbixeen banaanka wada yimideen arrintaas marka danahooda gaarka hoosane waa ku wateen macna maanta marka laga hadlo marka hadda oo maanta laga hadlo dadka ama shabaabka ku jiro ama argagixisada ku jiro andho ama ku biiraya marka la fiiriyo qofba dhinacu ka istaagahay markii aad loo fiiriyo waxa lagu koobaa hal yiraahdaa afar qaybood oo kale ayay ugu jiraan argagixisada marka hore qaybta ugu horeyso waa qayb ku dhalatay oo ku barbaartay oo ku nool goobaha ay si buuxda argagixisada u maamulaan qaybtaasi ma helin maamul ka duwankii argagixisada oo ay barbar dhigaan ka ila joogaan waana qaybta ugu badan markii boqolay laga dhigo waxa lagu tiriyaa boqolkiiba 54 inay yihiin waxayna u badan yihiin kuwa maleeshiyada dagaalama ama jabhadda qoriga u sidato dagaalanta sababka ay ugu jiraan marka fiiriso waxa la yiraahdaa sababta ay ugu jiraan waxa waaye nolol iyo markaasi dhaqaale mishaar yar oo maalinka $60 iyo $20 qaatada meediyaha ka sheegaan oo maxkamadaha markii meedan ka sheegaan ayay naf u bidaan marka qaybtaasi aad ay u fududahay inay ka soo tagaan marka ay helaan nolol ka duwan teela joogaan qaybta labaad marka la fiiriyo waa qayb kale oo si khasab ah iyo xoog ah looga afduubto reerahooda oo ehelada gaar ahaan waxay u badan yihiin dadka reer miyiga ama dadka baadiyaha ku nool oo beeraleyda ah ayay dhalinyaro caruur u badan oo da'yar ayay inta ka soo botaan ay ka soo afduubaan ayay afkaartooda ku shubaan qaybtaasi boqolkiiba 9 lagu qiyaasaa markii argagixisada hadda sidii joogto lagu qiimeeyaa tiradooda sabab ay ugu sii jiraan ay ugu biiraan ma laha oo aan ahayn afkaartaas loo sheego in bedelkooda idin haysan helin qayb kale oo idana tiro badan jirto oo u badan dadka madaxda ama horjoogayaasha sare iyo kuwa dhexe u badan qaybtaasi waxay u badan yihiin kuwa xilalka haya argagixisada xilalka ka haya ama kuwa fulinta ahaadana ama howl socodsiinta ha ahaadaan kuwaasi sababta ay ugu jiraan waa dana dhaqaale iyo dana xilka ay markaas mas'uuliyadda ay meesha ka hayaan wax mabda ay aaminsan yihiin ma jirto inay sii joogaan waxay ku xiran tahay mas'uuliyadda ka hayaan iyo waxa markaas danaha dhaqaale ka soo galay ay ku sii xiran tahay marba haddii mas'uuliyadda laga qaado
إيجو صعدي ما هاي وكسر تجان دولة السعودية بين أما سكالي أقول بحيانا وأنك تجان معنا قيبت أقدم بسوءها قيبت أفراد وقيبت أقول قيبت صدق ضدك وين بقول كيف صدق يكون الوقت الماما قيبت هرجوجياش إيو ضدك سلعكت إذا غالها يحلك أوجر قيبت أنا أقدم بسوءها قيبت لآمن سنيه أما لأوادي إن أي آمن سنيين إن أي سي إن لقى مد نقض أرجع صدق إن واجب ديني آمن سنيين بقول كيف بسدح إلا اللي حال الوقت الماما وقيب سيكو طلقة أي مركز أمر الحبابيان وضدك مدارسته ده سكولات كودا أفكارته اللي قلبه كسر بحين مركا وحاس في رسو هذا بدنا على استاجوا وياه قيبة كلا واجري كران معنا هذا مركا في رسو وحي واجهه أفكاري هاجرت هذا أفكارته ولا جورب هذا وحين نقطة طول أو لو ترجع جريه قفك عاسق النقد هذا من هذا لو بالكهر بيدوا محكمة أنكو صارنا قف حمر كل شيء هاي مركز dadku gobolada waa taqaanaan oo kala lahjad weyn waa weydin adiga xamara ku dhalatay luqadana ma taqaanid saa inta ina dadka joogo ku dhibta rabtaa xoraab laga fahmaan dhan maxaa ka soo danto meeshan uu hadlo wuxuu yiri warniyo aniga waxaan ku dhashay meeshii lahay suuqa xoolaha aan bahiliwa ayaan ku dhashay saddex qofoodaan ahayn xaafadan joognay waxaan ku heshiinay inaan tahriibno oo baxno aan tahriibna dadkii family yareeraheenii waxa ku kari weyn war tahriib aan rabnaayna wadeen ku kari weyn waa tashan warsan yeelna cidina ma ogolay waa shabaab aadina waa iga hadhow dhahay arsoo baxad waa tahriibinayna soo baxiga dhahay waa bixin shabaab aadin laba kamida dib loo waco dhahay anaga heeladoodu way ogolaadeen mid horta xaqo ka sii baxay bay dhawo ku gudbi saas hor u sii socday midna xamar ku soo laabtay kadib la diray kan markee anoo si shaqada sii wada inta laga wacay ay qabateen oo dhahay saas aligu ku imado dhahay macna dib markii loo baaray way mid kamid run naqatay saas ku cidii ku tarjir garay wala tahriibi macna waa saas 2022 ayaa waa ogtiin xildhibaanada yar dhalinyarada waqooyi kamid ah yimid halkan xamar dawladda la dhisay xildhibaanada waqooyiga markii waa ogtiin halkan lagu dhisay mugta wuu soo baxay xaq ka soo hayaa wuxuu rabay inuu dawladdu wax ka dhisto saas shaqo ku helo dawladda Soomaaliyeed wax ka dhisay inta dawladda Soomaaliyeed lagu dhisay mugta halkan oo yimid wixii wax ka ololeeyay markii ugu dambeysay ergada la qorayo oday ka reebay ergada ma iga reebto waa ha jafo dhashay oo baxar gashay iska dibarta laba sano wadada ku dheeraatay laba sano galguduud iska soo dhiibay adiga inta ka timid waa markaaga hor xaqabays warniyo aniga meesha ka imid xildhibaan aan dawlad rabay hebela odaga dhaqameedkiya macnaha idulmiyay way haysa yeeshay way xagan aado waa aniga inta soo aaday laakiin wixii meesha kulal adaga ka qaado si aan ugu soo baxan way hadda aad waa imid nimayahu bixiyay amba gobolkayga iyo celiya ama si inuu yeelo dhahay macnaha wixii ku tusinay inuu dawlad dhiso u yimid inuu dawlad dhiso oo imaade markaas oo hadan inuu dawladdu bi aaday sida waxaas inay afkaar iyo wixii ka gudbeen nin oo ugaas mu ahay ninkii la dhigi jiray nin macallin ahaayo mar aadi jiray waxa la yiraahdaa abwaanagay la yiraahdaa abwaanagay laba jeer aan saaxiibkay ii keenay jimcaha isla qaxweyne waxa cabnay shaahiga xaafadda ku cabnay laba jimcaha isku dhaw yimid waa 12 ka naftigiisa xildhibaan u raadinay xildhibaannimadeeda midkiisa insa aad isku fiican oo bahada sharciga kamid ah ii keenay wuxuu dhahay ninkaas wuxuu ilaahay ninka xildhibaannidiisa banaanka waaye teeda dib ku jirto dhahay ninkii gabaro goolbal tartamay gabadhiya ka xogtay baxay tiri waa wareegay mar kale meelaha shaqo ka raadiyay dekada meelahan asagana waa ilaan qofka macalinka ah macalinimadiisa intuu macalin yahay kaliya mushaarka qaadahay mugta civil service kuma jiro waxa joogo hadda kadib macalimiinta civil service lagu darwaaya oo shaqaale reedka lagu dar macnaha macalinka shaqo kale dhinac kale ka raadiyay hadana iyada naftigeedina wuxuu arkay in la reexay xagu ka soo jeesto carri macnaha xildhibaan u raadinayay xildhibaan hadduu noqon lahay dadka dawladda dhiso kamid noqon lahay xildhibaankii waaye soo jeedku aad bano waxa daan malina marka hadda afkaar wixii ka gudbeen oo hadda waxay noqdeen wax lagu toojir garay waxa laga shakeena marka ma dhaw ma fahanti arimahaas laga shakeena talada aan soo jeedinayno marka talada aan jeedinayno waxa waaye dhalinyaro waxa la rabaa inaad dawladda iyo dawladnimada xoojisaan amniga cadaaladda horumarka tan looga maarmi karo in uu firaaq
firaaq awoodeed uu dhaco macnaha meel bannaan ay argagixiso maamusho maxaa yeelay meelaha ay ku kobcaan ay ku koraan argagixisadu waa meel bannaan ah oo aysan dawlad ka jirin oo nidaam ka jirin inay helaan waa arrintaasi in dawlad loogu daneeyo ma aha in qof loogu daneeyana ma aha waa inay dhallinyaradu sideeda ay ugu shaqaysaa arrinta kale oo dawladda iyo bulshada inteeda dhanba laga rabo waxaa waaye in ay sameeyaan waa narrative-ka waa nuxur samaynta qaranka in laga qayb qaataa waa in si cad oo joogto ah loo kala saaraa islaamka ablaga soo gaarka ah oo fahamka saxiixa ku dhisan iyo afkaarta rabshadaha wato oo ay argagixisada soo waarideen in la kala saaraa waay taasna waxay ku imaan kartaa in culummada ay la taageero culummada afkaarta wanaagsan leh oo fahamka saxiixa ah faafiyay in la taageero waay culummada codkooda wax weyn ayuu maanta dhallinyarada u taraa waa inaan marna la ogolaanin in argagixisadu ay calanka diinta taagato oo ay diinta ka dhigato ruqsad ay dadka dembiyada iyo dilka ku geystaan ay ka dhigato culummada ablaga soo gaarka ah oo diinta sida fahamka saxiixa ka heystaa inay la taageeraa lagana qaataa macnaha saxda ah ee diinta islaamka oo ah diinta cadaaladda diinta nabadda iyo diinta naxariista in laga qaataa waay arrinka ugu dambeeya oo ay tahay in ay dhallinyaradu ku baraarugtaa waxaa waaye dhibaatada dalkeenna soomaaliya ka jirto waxay u baahan tahay xal soomaaliyeed ay u baahan tahay xal soomaaliyeed xal qalaad oo dibadaha ka yimid asoo hubaysan waa kaasa argagixisadu wadato soo dila Soomaaliyeed diin ku dila la dhahay waxa tiri waay annaga naftigeena alfuleel oo nagu noqday war dawlad dibashiisa sameeyay oo dib u dhisa oo saas yeela sida noola kor taagan annaga naftigeena alfuleel oo noqday waa gaari weyn waxaan u baahannahay awoodda annaga nagu jirto iyo waxa maxaa la yiraahdaa aqoonta annaga nagu jirto inaan dawladnimadeena ku garab istaagno shaqadeedana aan qabanno raalli naqad waa dheereeyay aad u maasantiin